بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام يا صحافة بوتلان. waxaan rabaa inaan caddayn yar ka bixiyo haddii aan la idmo qadiyaad ku saabsan dad la tuhunsanayaala ama eedeysanayaala oo sharcigu xiray oo meediyaha iyo dowladda federaalka intuba ay ka hadleen, qof walibana uu meeshuu rabay u la aaday. qadiyadaas ayaa waxaan rabaa sharciyan horta qof ma la xiri karaa, sharcigu muxuu ka qabaa qof in la xiro. dowladda federaalka ahi iyo dowladda Puntland labaduba waxay leeyihiin hay-ado dawliga oo dowladda ay ka kooban tahay oo saddex ah: hay-adda fulinta, baarlamaanka iyo garsoorka. saddexda hay-adood waa saddex hay-adood oo dastuurka dowladda federaalka si sharci ah uga dhisan, kala madax bannaan, qolo walba waajibaadkooda shaqo u madax bannaan yahay, wada shaqayn guudna ay ka dhaxayso. Puntland markii laga hadlayana sidoo kale dastuurka Puntland uu ka horeeyay dowladda federaalka dhismaheeda, uu ka horeeyay dastuurka federaalka hadda lagu dhaqmo uu ka horeeyay. waxaa si cad ugu qeexan dowladdu inay ka kooban tahay saddex hay-adood oo kala madax bannaan, mid walibana shaqadeeda ay u madax bannaan tahay, laakiin ay ka wada dhaxayso wada shaqayn guud oo dowladnimo ah. qof la soo eedeeyey in ilaa heer cid walba ay ka hadasho oo mas-uuliyiinta dowladda federaalka ahi ay ka hadasho, qof case dembiya lagu soo eedeeyey. waxaan ognahay sharciga markii la sheego ama laga hadlo, sharcigu inuu cid kasta ka sarreeyo: madaxweyne, ra'iisul wasaare, wasiir, baarlamaan, dhammaan waxaa ka sarreeya sharciga. qofkii ku xadgudbana waxaa la saaraa miisaan sharci. dadka hadda eedeysanayaasha oo qaarkoodna garowe ku xiran yahay, qaarkoodna boosaaso ku xiran yahay, madaxweyne amar kama bixin in la soo xiro. waxaa soo xiray ama lagu qabtay inay shuruucda dalka Puntland u degsan ay ku xadgudbeen. intaa kadibna hay-adaha qolo walba waxay leedahay door bay leedahay. marka ugu horeysa markii qofka la soo qabto la tuhunsanaha wuxuu soo maraa saldhig iyo baaritaan buu soo maraa. baaritaanka markuu soo dhammaystirmo oo galdacwadeedka la soo dhammaystiro wuxuu soo gaaraa xafiiska xeer ilaalinta. xafiiska xeer ilaalintu markaa wuxuu ka qabsadaa shaqooyinka oo sharcigu u ogol yahay oo noqon kara haddii kiiska la soo gudbiyey oo hay-adaha baaristu ay soo gudbiyeen uu yahay kiis dhammaystiran, waxay u gudbiyaan maxkamadda ikhtisaaska u leh dhegeysiga garmaqalkaas. haddii kiiskaasu galdacwadeedka laga soo gudbiyey uuna dhammaystirninna wuxuu sharcigu u ogol yahay inuu ku celiyo hay-addii soo baartay isagoo tilmaamaya daldaloolka baaristu ay leedahay. wuxuu kaloo sharcigu u fasaxayaa in kiis hadduuba dhicin in kiiska galdacwadeedkaba inay xirto. marka dadka ka hadlaya oo dad la soo xiray oo muwaadiniina oo Soomaaliya oo la soo xiray oo inay dembi galeen, dalka dembi ka galeen lagu tuhunsan yahay, dadka hadda ka hadlaya ma aqaan ujeeddada hadda ay ka leeyihiin iyo danta ay ka leeyihiin. ma joogno jasiiratu waaqwaaq, ma joogno. dalku sharci buu lahaan jiray, horey baa Soomaaliya u jirtay, horey baa sharcigaana u jiray, horey baa dadka loo xiri jiray, loo soo eedeyn jiray, dembi loogu oogi jiray, maxkamadii maxaan ku yidhahdaa xukun ugu ridi jirtay. kaysku markuu taagan yahay baaris, maxkamadii ay waaran warjo oo jarto laga soo codsado, hay-adaha amnigu ay ka soo codsadaan, cid soo faragelin karta ilaa kiiska qofka ama lagu waayo ama lagu helo, cid soo faragelin karta oo maxaan ku yidhahdaa tala ka bixin karta oo aanaan hay-adaha sharciga ma jirto. shakhsiga waa la soo eedeeyey, eedeyntii shakhsiyaadkaas labada meelood ku xiranna insha Allah waxaan rabnaa inaan miisaanka sharciga ah inaan saarno. haddii eedaha laga soo gudbiyey ay noqdaan maangal sharciga wax kaga xadgudbeen, waxaa ku dhici doonta ciqaabta sharcigu u ogol yahay. haddii lagu waayo wayba dhacdaa oo marar badan bay dhacdaa, qof la tuhmay in dembigii lagu soo eedeeyey lagu waayana waxaa sii dayn doona maxkamadda. madaxweyne deni baan sii dayn karin,
madaxweyne farmaajo sii deyn karin ra'iisul wasaare sii deyn karin sharci baa soo xiray sharci baana sii deynaya dadweynaha intaas aan rabaa inaan la wadaago haddii aan la idmo